السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمانتين meel kasta caalamka ka joogtaan baa isku soo noqod wanaagsan marar badan ma maqashay daacadnimadii oo qofa beentii oo qofa runtii oo qofa ama waxaas oo qofa haddaba maanta videoga aan rabo in aan reactionka ka bixiyo waxaan oran karaa waa hadal aan marar fara badan idin iri waana hubaa inaad videoyadeeda in badan hadalkan ka maqasheen dumarka lagama badbadiyo sax haddaba lagama badbadiyadii oo qofa ayaan caaw rabaa inaan reaction ka bixiyo bal videogan aynu marka hore isla yara daawano markaas waa caadi maxaa caadi ah laba qof ilaa isla shukaansadii ka badan buu caadi marka labada qof waxaan u tijaabinayaa midna attentionkiisu yeergo saaid ima sii daneeyo midna aad buu ii daneeyaa markaas waxaan rabaa midkii i qaato inaan raaco okay mid attention ku siiya mid attention kuma siiyo attentionkiisa yar sidoo attentionkiisa ku yaray noo kala qeex badan aan fahnay sababteeda midkaan labada qof ani markaan sii fiiriyo waxaan sii daneeyaa midka attentionkiisa yar yahay adiga waan ka maseeraa waan aad baan ooga maseeraa markaas asagana waxa ani sameynahaya aayar isdajin buu idhihi sababteeda ani wax khaldan sameeyaha taa ma dhahayo waad khaldan tahay waad saxantuun buu isii keekaas waa midka ani aan daneeyo oo attention ku siinin attentionkiisa uu yaryahay intee kala jooga labada qof mid xamar midna Yurub buu joogaa adikan aad danaystiya kee waay midka xamar joogo waxaan ku danaysaa attention kuma siiyo attention ma say I don't know waan daneeyaa saaid aan daneeyaa marar badan markaan idin lahaa gabdhaha aad la socotaan ha ka badbadinina qaar idin ka mid ah waxaad ii aragteen inaan ahay qof kharaarsan oo dumarka neceb ama waxaad ii aragteen in aan ahay qof waxa uu ka hadlayaba aan aqoon haddaba middan si fiican marka ugu fiirso labada dhan markay ragga iyo dumarka noqoto marka ragga laga badbadiyana sibay uga falceliyaan dumarkuna marka laga badbadiyo sibay uga falceliyaan inta badan dumarku sida ama falcelintoodu ay tahay ma ahan sida ninku uu rabo boqolkiiba 99 xataa ma dhihi karo boqolkiiba 100 sida adigu aad rabtaa waa inay gabadhu ixtiraam ku tusto inay ku danayso fariimaha dhaqso uga soo jawaabto ku soo raadiso kalgacayl ku tusto laakiin markaad adigu ka badbadiso waxaa dhacda ka soo horjeedka oo ah sida aan naftaada raali gelinayn sida aadan rabin ee keenta buuqa iyo walwalka iyo stresska iyo inaad cuntada ka goodo midda xaqiiqada marka jirtaa waxay tahay gabadhan hadda ninka ay danaynaysaa waa ninka aan iyada u soo jeedin ninka iyada danaynayana kulli waa daawan doonaa ninka iyada danaynayana dan uma hayso maxay tahay marka sababta keenta hadda ka hormar baan video ka sameeyo canaan fara badan baa iga soo kiin gaartay markaan iri dumarku ragga u daran maxay ku jecel yihiin maaqa videogaas inuu weli channel ku jiro laakiin xaqiiqada jirtaa waxay tahay marka aad ka badbadiso oo fariimaha aad qorayso iyo raadinta iyo qababacda iyo masayrka iyo xageed istaagtay iyo xagee martay iyadu xiisaheedii boos ay kugu tustaaba ma jiro dhulkii oo dhan ba adiga haysta iyadu markastoo damacdaba inay ku soo raadiso adaa ka soo horeeya telefoonka markay subaxii furto oo istirada balinu fariin kuu soo qorayba 15 fariimood xali 9 saac waa kugu riyoonaya baa ku jira ma kula tahay marka inay ku soo jawaabayso kuma soo jawaabayso way xiisihii keenay inay ku soo xusuusato telefoonka soo qaado fiiriso balinaad wax fariin u soo qortay hadaadan u soo qorin ay fariin kugu soo qori lahayd dhammaan waxa baabi'inaya waa fariimahaagan tirada badan wixii iyadu ay qaban lahayd ee xiise u qabtay ay ku dareemaysay in ay jacaylkeeda kuu muujinayso dhan adaa wixii oo dhan tirtirayo baabi'inaya laakiin waan hubaa in badan oo idin ka mid ah inaad u haysataan in haddii aadan fariin u qorin aysan ku jeclaanayn ama aysan ku danaynayn qofku markuu maqan yahay la tabaa goormaa lagu tabayaa 24 saac buu adigan soo taaganay habeenkii 5 saacadood baa telefoon ku hadlaysaa maalintii oo dhan intaasoo fariimood baad soo qori meel kastoo istaagtay bareegaad qaadatay waxaad qabataad u soo sheegi maalintii oo dhan waad la hadlaysaa qofkii nafisba maadsiin uu kugu tabo kugu xiiso marka yay xiisayn doontaa marka waxay xiisayn doontaa kan aan u soo jeedin iyada ee ka mashquulsan waxaad arki iyadoo telefoonka kaa yaraysay iyadoo fariimahaaga dhaqso uga soo jawaabayn waa marka rag badani ay ogaadaan gabadhu inaysan intan oo dhanba aysan daacad u ahayn ayna isweydiiyaan maxaan khalday soo aniga fariimaha u qorayay soo aniga subax wanaagsan lahaa soo aniga maalin walba raadinayay soo aniga hadhicin ha jabin lahaa maxaa khaldan oo maxaan geystay ma wixii bini aadamku naxariis ahaay ay isa siin jireen isku jeclaan lahaayeen ayaa keenay in la igu naco
laakiin xaqiiqadu waxay tahay psychologically waad kala duwantihiin adiga iyo dumarku sida adigu aad u fakarayso waxaad moodaa waxaan aad u samaynaysaa tirada badan inay kugu jeclaanayso laakiin xaqiiqa maahan haddaba balaynu isla daawano qaybaha kale aad u ii daneeya laakiin ma garanahay okay daneenta sidee waa marka asagana maya saaid u ii daneeyaa 24 hour aniga hadda taleefanka ka qaba waay wuu iima seeraa wuu ii daba rooraa aniga waan la hadlaa waan daneeyaa laakiin kanaan kaga sii daneys badan yahay markaan fiiriyo adiga qalbigaaga qofuu rabaa qofkaas laakiin kuma xiisay iyo kuma siiyo waqti kuma siiyo yes laakiin adiga qalbigaasaa rabaa ah kan kale waqti uu ku siiyaa laakiin qalbigaaga ma rabo yes waay laakiin moogi midaa dooqaada ah miya kan kale dooqnimo miya qurux iyo waxaas miya mise maxaa qaldan labada qof waxaaba qurux badanba midka Yurub jooga I don't know moogi waxa uu dareemay I don't know maxaa ku jeclaatay marka because maxaa ku jiidinaya mise saa horbaratay maya waagi hore dad asxaab caadi ahaan jirin walaal eh mar dambe xiriirkii anada soo bilaabmay ma garanay kulay waxaan ku raacay ma ka saa okay haddaba xaqiiqada jirtee in badanoo idinka mid a aad igula yaabi jirteen aanna hubo malaha wakhtigaa ka hor inaydan cid kale ka maqlin waa tana haddaad danayso oo maantana ka daba wareegto oo sidii inaadan camal lahayn wax kaa dhacaaba aysan jirin aad noqoto kuma danaynayso wixii aad rabtay baad ku waayeysaa laakiin waxa aad rabto see ku heli kartaa waa marka in badanoo dadka ka midii siday aaminsan yihiin kasoo horjeedkeeda aad samayso oo ka badbadintan iyo waxaan hadda xabiibtii waa ku jeclahay macaanto dadku 80% markay aqal galaan sanadka ugu horeeya erayadaa la iloobaa haddaanba magacyo xunxun la isugu yeerin mararka qaar inta hore ee la wada socdo baa waxaa la isugu yeeraa waa ku jeclahay hajabin iyo indhahaygii iyo qalbigayga nuurkiisa iyo waxaanoo dhan waxba kama jiraan hadhow marka reer la noqdo waxaanoo dhan waa la iloobayaa waxaan isweydiin maxaa khaldan mid jirta waxa weeyaan ninka ay leedahay waan jeclahay waana rabaa gabadha tani ninka kale ee aysan danaynayn baa kana muuqaal qurxoon dee dhulalka ay gabdha in badanoo ka mid a gabdhaha Soomaalidu ay ku riyoonayaanna jooga ayna dhici kartaa inuu caawi intuu yimaado uu aroosi karo aroos qurux badan oo u dhigi karo ay dhici karta riyooyinkeeda riyo ka mid a inuu u rumeeyo qurba geeyo laga yaabo inay waxbarasho iyo fursado badan ay sidaa ku hesho laakiin waxaasoo dhan uma muuqdaan maxaa tirtiray bay kula tahay marka ninka aamusan ee soo jawaabayn baa wax walba dhankiisay jiraan qalbigeedoo dhan ba halkaas u jira haddaba marka adiga maxaa kula gudboon inaad ka daba calaacasho ka daba oydo subax walba maxaad ku quraacatay macanjeeraad cuntay mise suqaar baad cuntay inaad weydiiso waa maya maalintii markaad soo kacdo haddaad gabar la socoto sida caadiga ee bini aadamka lagu yaqaano qof walba dantiisa u foofaya sidii inaadan cidna la socon oo kale telefoonka fariin ba hadirin danahaaga iska raaco hawlahaaga ku mashquul maalintu kala bar markay gaarto un baa haddii aadan warkeeda maqlin hal mar fariin loo qoraa walwalna waa inaysan kugu hayn haddii ka soo jawaabtay haddii ka soo jawaabin waxaana rabaa inaad mid ogaataan gabar kasta oo aad la socoto maanta waxaad iska ilowdaa niman kale inay la socotaan u diidayaa niman kale haddii aan ku arko waan ka masayrayaa niman kale haddaan ku arko dhibaatay ugu tahay way la socon kartaa ma cid ku haysataa jirta waa maya maxaaskaaga xalaal ahbaa waa maya meeshan waxaa ka baxaya stress badan oo raggu ay isku abuuraan haddaba bal qaybaha kale aynu isla yara daawano Nairobi joogta adi maxaa qof Nairobi ugu shaqaynayso dadka meelaha jiro u shaqaynaysa waqti ma u hay sababta waqtigeyga labada qof aan geliyaa aha okay misku diiday inaa qof shaqaynaysid joogo may weliba mashkaas qof magaaladan ma dhawaa igu dambeysay 2019 aha qof Nairobi jooga shukaasada waa masayr badan inta qofkii Nairobi jooga qofku ka hor imaan wuu la hadlayaa ana waxaas way dhibi dadka xagga joogaan dadka ma hor imaadaan miyaa waxaas erarkeeni wuxuu sameeyaa ii dhaama uu ii qarsan yahay camal waxa walba sameeyay kaas uu qarsay boogtahay okay laakiin qofka rida albaabkaas asagoo marahayo magaalada dhex socda wadada iskaga hor imaana asagoo gabar abay nabada waan ka xanaaqana waan dhibsan marka midka iga dheer wuxuu sameeyaa sameey door laakiin dhibaatadiisa marka iima muuqato okay adiga guri soo martay yes labadan qofna ayaa guri soo maray ayagana labadaba isku kooxati isku tiim baan nahay qof qabo ma ku jiro hadda may ayagana adiga camal wada garoobo yes yeah mid baa jirta meeshan inaan baraarujiyo markaad qof xiriir la leedahay
sababta koobaad ee aad ula socotaa maxay tahay waan hubaa badankiin waxaad oran doontaan inaan qofkan nolol la wadaago laakiin waxbaa ka horeeya midda ka horeysa waxay tahay in qofkan dabeecadihiisa qaar ka mid ah aad hadda sii barato midda adag ee dad fara badan aysan fahmin waxay tahay masayrku waa laba nooc midna wax cad oo loo jeedo oo masayr keeni kara oo uu qofku sameeyay buu ku yimaadaa midna qofku hooskiisu ka cararaya tan aan rabo marka inaan diiradda saaraa waa tan qofku uu hooskiisa ka cararayo hadda gabadhan waxay tilmaantay nin magaalada ila jooga waxaan u shukaansan waayey dee gabdho ka soo horbaxaya wuu salaamaya iyo wixii la mid ah markaad qabto gabar aad u masayr badan nolosha waad ku guban anaa gubashadu tanaan ka hadlayo mahantii dabka tanaan ka hadlayo waa nolosha ciriiri badan baad ku dareemaysaa waayo hooskaagaad ka baqaysaa ka waran bal aduu gabar aad qabto oo intaad musqusha markaad gashay telefoonkaaga xusuusan telefoonkaaga maanta dhan la baaray yaad la hadashay haddii qof cusub la arko waxaa leeyahay faarax maahane malaha waa fartuun telefoon kastoo meesha lagu arkaba waa in la baaro waxaan hubaa waxyaabaha social media waxaa la yidhi umulisadu siday wuxuu ogtahay wuxuma sheegteen waxyaabo badan oo isoo gaaro runtii waxaa jira aad u la yaab badan gabdhaha qaar waxaa jirta inay yidhaahdaan telefoonka ninkayga intaan galay baan telefoonadii ugu jiray oo dhan qortay si aan maalintii ilaa gurigay joogtaa ninkaa shaqeeyo oo iyadu waa hooyo guri joogtaa maalintii oo dhanba marka shaqo kale ma lahan intaasoo telefoon bay wici mid walba bal amay naagi kaa qabataa haddii telefoon intay wacdo nin xaaskiisu ay qabato gurigaasu wuxuu qarka u saaran yahay ama ay u badan tahay inuu dumo macnaha ninku way adag tahay inuu ka dhaadhacsiiyo dad isku qabsaday arrimahan oo xataa waxaan garanayaa kaysaskooda i soo gaareen oo yidhi yaa saxan yaa khaldan macnaha ninkina uu leeyahay gabadha tan telefoonka ay wacday waa ninaanu saaxiibanahay laakiin xaaskiisaa ka qabatay oo gabadhii baaba lehba xaaskiisaanahay walaal maxaan kaa caawiya oo reerkii kale xataa waxaa laga yaabaa haddii iyadoo kale ay joogto inuu isaguna dhanka kale u dabka kaco haddaba masayrku haddii wax cad oo loo jeedo uu leeyahay dee markaa waad is og tahay laakiin haddii xaqiiqa ahaan aad og tahay oo qofkani waxa uu kugu eedaynayo waxaa ka dhalatay inuu qofku ku aflagaadeeyo oo qofku aflagaada ka yari ma jirto adoon khaa'in ahayn oo daacad qofkan u ah inuu ku yidhahdo khaa'in baa tahay waaba ku aflagaadeeyo qofkaasu waaba ku caayay baan odhan karayaa adoo daacad 100% u ah qof kugu eedaynaya inaadan daacad u ahayn qofkaasu qofkaaga maahan qofku sideedaba inuu masayro looma diidana oo qofku calaamadaha inuu ku jecel yahay waxaa lagu gartaa inuu ku masayro hadda labada wiil ee gabadha tani ay jeegaraysay mid ka dambe markii la yiri cid kale fiirinaysay iyo marka la soo qaaday wuxuu yiri ruuxan naga daaye ma kala jecla 100% ninka ay iyadu rabto iyada danka ma lahan xaqiiqo runa weey dan uu iyada ka leeyahay ma jirto waa qofku intay doontaba ha noqotay wax uun masayra ayaa taabta markii loo sheego qofku inuu qofkiisu qof kale la sheekaysay wixii la mid ah masayrku marka uu yahay qofku tan uu hooskiisa ka cararayo waa masiibo haddaad guri gasho gabar dee raran uu ku shidan yahay maanta dhan oo maskanteedu u sheekaynayso waxaan kuu hubaa ciriir badan baad nolosha ku dareemi qof 24 saac ka shakisanoo afka taagayo iska xanaaqsan hadalka kuu qalqalluucinaya sidaad ula noolaan karaysaa bay kula tahay guryo badan baana arrintan ku duma inta badanna arrintan hadda ka hor baan podcast kaga hadlay waxay salka ku haysaa korriimada hore ee gabadha tan ama wiilka ha noqota ama gabadha ha noqotee korriimada hore qofka kale uu soo koray bay la xiriirtaa inta badanna waxay 100% salka ku haysaa waa kalsooni darro uu qofku isu arko inuusan qiimo lahayn qofkan buu qiimihiisa oo dhan ka dhex arkaa qiimo kale inuu leeyahay ma moodo hadduu qofkani ka tago wuxuu moodaa nolosha inay u dhammaatay waana dhibaato weyn waa inaad naftaada dib ugu noqoto waa inaad naftaada dawayso waa inaad naftaada xanuunada iyo dhaawaca kugu yaalla aad isdul taagto ood adigu dhaydo boogahaaga cidana ma dhayi karta boog kugu taalla haddii qof uu dhaawac kuu soo geystay qof kastoo noloshaada dib kaala kulmaa ma dhayi kara dhaawaca ilaan isagu kuuma geysan masayrku marka uu yahay qofku middan uu iska sasayo dee maanta dhan uu ku daba taagan yahay maanta dhan kaa shakisan yahay maanta dhan xaggee joogtaa ragga qaar waxaan xusuustaa kaysaskoodii soo gaareen oo isagoo rag saaxiibadiisa la fadhiya la leeyahay ragga saaxiibada ee codkooda aan maqlay telefoonka ha ka bixin waa xaqiiqo jirta taa marka nolol lama oran karo haddaad gabadha ka aragto gabar waalwaalan oo ay maaragtay dab ku shidan yahay 24 saac dee hadhow bari markaad guri iyo reer yeelataan oo awlaad dhashaan oo maalin walba isku dulqa qabsan doontaan
waana xaqiiqo run ah oo jirta guryo badan baana arrintan ku duma masayrka noocaasi wuxuu keenaa qofku inuu ku kontrolo dhibaataduna waxay ku jirtaa marka adigu aad isku daydo qofkan in aad meel walba oo uu masayr iyo qababac aan jirin ka keenaba inaad adigu raali geliso ogow dhibaatadaad sii kordhinaysaa mar kastood qofkan raali gelinaysood leedahay waxaasu ma jiraan mar kastood istirahdaba qofkan sii qanci god baad sii qodanaysaa adigu sida kaliya tahay waxa weeyaan marka ugu horeyso qofkan uu arrintan kuu keeno ama uu kugu eedeeyo waxaan jirin waa inaad markaba diiddo oo tiraahdo waxaan waxba kama jiraan warkana intaa halkaa ku jar haddaadan halkaa warka ku jarin ee maanta dhan aad caga masaajayn iyo macaan hayga xumaanin iyo waxaasu ma jiraan iyo balaayadii shaydaanka iska naar iyo waxaan kuu hubaa shaydaanka ma naaraysa shayaadiintu way ku soo badanayaan mar walba waxaa shaydaanku ugu sheekayn doonaa muxuu horta kaa qancinaya haddaanba waxba jirin adaa marka baxar isgelinaya baxarka intaad geli lahayd jooji waxaa ka dhalatay inuu qofku ku kontrolo oo waxyaabaha qaar ileen marka ugu horeysa markaas tiraado qofkan qanci waxaa qayb ka mida noqon doonta in meesha ha aadin lagu yiraahdo inaadan aadin qofka ha la hadlin inaadan la hadlin waxaad ka baqi doontaa qof adoo iska caadi oo labadiinu isla socotaan salaam calaykum ku yiri wa calaykum salaam xataa inaad tiraahdo taa nolol ma la oran karaa nolol maahan meeshan ujeedadu marna maahan dadka reeraha leh ee isqaba inaan la hadlayo waxaan la hadlayaa markaad xiriir ku jirtaan dadka reeraha lahow arrintaasu hadda mindi uus ku tagtay baa la yiraahdaa reer baad leedihiin arrintan wada fariista kana wada hadla inta badanna dhibaatadu waxay ku jirtaa marka qofna qofka kale uusan aqoonin sida dhabtahay uu ku soo koray dib ugu noqo qof walba korriimadaadii hore dib ugu noqo meesha dhibaatadu ay kaa haysataa waa ababkaagii hore halkaa haddaad dib ugu noqotana wax badan baa kuu soo bixi doona iyo kalsooni darradan waalidahay kugu abuuran meesha ay ka soo jeedo waayo qofku markuu naftiisa jecel yahay markuu kalsooni buuxda naftiisa ku qabo markuu og yahay in bini aadamka adduunka jooga dhammaantood uu la'aantood noolaan karo waxaan hubaa in kalsooni darradaasu aysan kugu jirin guriga ay joogto gabar aan ku baarbaarayn iyo guriga ay joogto gabar hooskeeda ka cararaysa labadaba ninkii soo arkay uunbaa garan karaya haddaad soo aragtay waad soo aragtay mar labaad qaladkaa dib ha ugu noqon gabadhu marka ay deganaanku siinayso deganaantu waxay ka bilaabataa markaad gurigaaga soo gasho inay ku salaanto sidee tahay ku marxabayso telefoonkaagana aan cidiba fiirin hadduu maanta dhandhacayo adigu waxay xataa fursad kuu siinaysaa inaad daacad qofka miskiinka u noqoto in badan waxaana hubaa meeshana oranaya gabdho badan ninkaaga markaad baaritaanka ka badiso iga qor hadalkan adigaa sabab u noqonaya inuu naag kale kaa raadsado ereyga naag waan ogahay waad dibsan doontaan in badan oo idinka mid a laakiin ka raalli noqdo ujeedadu marna maahan inaan gaf iyo liiditaan aan u leeyahay hadalka ninkaagu isagaa gabar kaa raadsan doona adigaana sabab u ah sabab waxaad ugu tahay baaritaankan tirada badan wuxuu oran maalin walba waxaan laygu eedaynayo ballaanka salgaaro aan sameeyo marka kulli waaba laygu eedaya wixii anoo raganimadeeda u baahan baaniyada darteed laga yaaba xaalado badan oo ixtiraam aan u hayo uga leexanayo wayba igu eedaynaysaa miya taasaana keenta rag badan inay gabar kale shukaansadaan qisaan idinka sheekeynaya kuna soo gabagabaynayaan waxaa dhacday hadda ka hor nin baa mar kasta oo uu qurbahay deganaayeen isagii xaaskiisu marka uu safro bay xaaskiisu waxay oran jirtay markuu soo laabto waxaad Afrika u aaday inaad maartay gabar kale soo guursato naa kale xagga kuu joogta sanad walba xagga saasaad u aadaa xaqiiqo run ahaanna hooyadii iyo qaraabadiisu soo buuqan jiray isagu walaalihii hooyadiisa Afrika deganaa markuu soo noqdo maalin walba buuqan guriga ka haysta wuxuu yiri anaaba xal u keenay hadda kadib run buu u soo guursaday markii dambe intuu laabtay intii buuqu socday buu gabar bartay uu dabcan u laalaabanay wuxuu yiri kulli soo laguguma eeday ha ka dhabe maalintii dambe iyadoo marka mar walba wuxuu sameyn jiray inuu isdifaaco oo yiraahdo waxba kama jiraan hooyadii baan u tagay meel kale xataa ma aadin waxa ma aan samaynin shaydaanka iska naar maalinka dambe markuu run u soo guursado uu soo noqday oo ay tiri ha islaantii Afrikaad u dhuuman jirtay baad ku maqnayde haye bal warkaysi kulli run kama sheegayside wuxuu yiri waa run ha waan qabaa maalintaas ugu dambeysay hadal dambe tiraahdo waa dambe bay ogaatay in hadalka dambe ee uu yiri oo run ahaa gurigiina ma dumin oo de sidii buu labadiisii xaas ku qabay marka qofka haddaad aragto in waswaaskiisu badan yahay controlka kugu badanaya waxa kugu badanaya qofku inuu waxaan jirin iskaga ka eedeeyo habeenna badan baa waxa dhici doonta inaad sariirta seexan weydo ood ka soo baxdo fadhiga iska seexato waayo buuqa iyo qaylada iyo qababacda iyo isqa qabsiga meel loogu talagalay in lagu nasto bal ka waran haddii meesha dagaal laga oogo oo laga bilaabo habeen walba kula tahay inaad ku ladayso ama meel naftu ay ku xasishay raadin marka dambe
haddaba haddaad aragto qofku inuu baarbaaritaankiisu badan yahay waswaaskiisu badan yahay cid ma salaami kartid qofka lama hadli karto shalay buu kula kulmay qofkani adduunku waa ballaaran dumarna waa ka buuxan ragna waa ka buuxan adduunka sidaa u waasacay u ballaaran hal qof oo la kulantay jacaylka qofkan jacayl baad siisay isaguna wuxuu ku tusayaa nacayb macnaha noloshaada inaba horumar xataa kuuma ogola haddaad nin tahay ganacsi ma geli kartid way haddaad ganacsi gasho dabcan dumar baad isarki doontaan la hadli doontaa ma shaqaynaysaa bay kula tahay waa maya maalin walba iyadoo meesha ganacsiga taagan un baad arki waxaa laga yaabaa gabar aad si caadiya ula hadlaysay oo dilada walaal soo dhawow ii waran see tahay ma fiican tahay ba waxaa laga yaabaa inay si kale u fasirato waayo ma fiican tahaydaas waxay u aragtaa waan ku rabaa inaad leedahay way qofkan maskixiyan baa wax ka khaldan yihiin mana ahan inaan leeyahay wuu waalan yahay laakiin maskixiyan markay noqoto dhankaa jacaylka iyo si khaldan buu wuxuu fahmaa qofka sida khaldan marka wuxuu fahmaa xataa way adag tahay inuu reer dhisto oo uu ku dego oo maaragtay guri kalgacal iyo xasilooni iyo naxariisi ay taalo way adag tahay qofkaas inuu gurigiisu noqdo haddaba dhammaantiin intaan muuqaalka la dib ugu kulmayno ramadaan mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh